بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن أخيار تعود إيجاد داون إساء كسر هذا وراركي سومالي دا كود يوجد بيود هذا كل كذا داوتان بيشكن قالورات كنتو سأنا يدو يبوين إدمو معلومات أتكم على دونتان وحاكمدا سومالي لان أو وشايسا ويررع علوس أردنك إنترنت كا iyada oo lala wareegay hadaba maxaa lala wareegay intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadal maqalka leega saar iska sheer garay ayna ku bilownay saaxiibayaal Somaliland ayaa wajahaysa weerar culus oo dhanka internetka ah kadib markii la sheegay kooxaha burcad internet ah ay bartilmaameedeen hay'adaha kala duwan ee maamulkaasi Somaliland weeraradan ayaa la sheegay in si gaar ah loogu sameeyay qaar ka mid ah mareegooyinka baraha bulshada ee internetka ee hay'adda maamulka Somaliland iyadoo lagu bartilmaameedsaday hawlgal laguna burburiyay iyada oo dhanka tijaabada ah ee internetka lagu sameeyay ee digitalka loo yaqaan kooxan weerarka fuliyay ayaa la xiriirinayaa Iran iyo Xuutiyiinta Yemen si ku meel gaar ah ay ula wareegeen bogag gaarka ah hay'adaha maamulka Somaliland ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin bangiga Somaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulkaasi Somaliland mareegtadan la jabsaday ayaa gabi ahaanba laga tirtiray xogihii macluumaadkii halkaasi ku jiray ee maamulka uu jiray taas oo dhalisay hakad ku yimid adeegyada gaarka ah ee internetka sidoo kale intii weerarku uu socday waxaa mareegaha lagu faafiyay fariimo muujinaya taageero loo hayo Xuutiyiinta Yemen taasoo weeraradan si toos ah ula xiriirinaysa xulafada Iran dhanka kale maamulka Somaliland ayaa weli si rasmi ah uga hadlin dhacdadan iyo khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ama ka dhashay weeraraas inkastoo la filayo inay warbixin rasmi ah ay ka soo saaraan si kastaba ha ahaatee weerarkan internetka ah ayaa lagu beegsaday xilli maamulka Somaliland dhawaan uu sheegay inuu safaarad ka furtay magaalada Qudus ee dalkaasi Falastiin tallaabadaas ayaa si weyn uga careysiiyay dalal badan oo islaama dhanka kale xiriirka Somaliland iyo Israel ayaa sidoo kale diidmo adag kala kulmay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dalal badan oo caalamka ah kuwaas oo arka in xadgudub ay ku tahay qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxyaalaha dambe ka soo cusmanada saaxiibayaal muuqaalada dambe ayaynu ku iskula daawan doonaa fadlan muuqaalka laga soo sheer garay